madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa kulan qada sharaf ah u sameeyay maamulka iyo howlwadeennada hay'adda dhulka Jubbaland. Kulankan oo ujeedkiisu ahaa qada sharaf loo sameeyay maamulka iyo shaqaalaha hay'adda dhulka Jubbaland iyo sagootin loogu talagalay guddiga xalinta khilaafaadka ee dhulka Jubbaland ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta Jubbaland iyo xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland Nuux Cabdiwahaab Maxamed madaxa hay'adda dhulka Jubbaland ayaa ka mahadceliyay kulanka qada sharafta ah ee uu madaxweyne ku-xigeenku u sameeyay hay'adda dhulka waxaana uu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka warbixin ka siiyay waxqabadka hay'adda. Waxaa farxad maanta inoo ah inaan ka soo qayb galo xafladan aan isleeyahay qada sharafta loo sameeyay hay'adda dhulka Jubbaland iyo sagootinta loogu talagalay guddiga xalinta khilaafaadka dhulka ee sida adag u soo shaqeeyay. Hay'adda dhulka Jubbaland waxaa la aasaasay sida la wada ogyahay bishii May 2018. Waxaan filayaa hadda waxay dhammaystiratay 2 sano iyo taqriiban 8 bilood baan filayaa ay shaqaynaysaa hay'addu. ujeedooyinka ugu weyn loo aasaasayna 3 ujeedo ugu weyneed. tan koowaad waxay ahayd in xal loo helo isqabqabsadkii iyo khilaafaadkii dhulka ee ka jiray Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. tan labaadna waxay ahayd in diiwaangelin lagu sameeyo iyo qaabayn dhulka magaalada Kismaayo ku yaalo Jubbaland guud ahaan Kismaayo laga bilaabay. tan saddexaadna waxay ahayd in la diyaarsho magaalo kasta oo Jubbaland ku taalo magaalo casri in laga diyaarsho oo taqriiban la jaan qaadi karayso nolosha mustaqbalka ah Kismaayo idan laga bilaabay. waxaan isleeyahay saddexdii ujeedaba Ilaahay Azza wa Jalla waa suurto geliyay tallaabooyin iyo natiijooyin la taaban kana waa laga gaaray. guddiga xalinta khilaafaadka dhulka muddadii ay jireen wax weyn oo la taaban karo ay qabteen dadka magaalada ku noolna kulli marqaati bay ka yihiin. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ku bogaadiyay maamulka iyo howlwadeennada hay'adda dhulka Jubbaland shaqada ay u hayaan bulshada. howlwadeennadan meesha fadhiyo guddiyadan sharafta leh baahi baa keentay in la qabto si ku meel gaar ah. hay'addan in la dhiso baahi baa keentay sababtoo ah dhulkii wuxuu noqday khilaafyada Soomaaliya ka jira midka ugu cajiibsan oo ugu dhibka badan oo meel walba ka jira. in dadka qaar ay dhulkii qabsadaan dadka qaarna ay waayaan meel ay degaan in dadka qaar dhulkooda laga qaadanayo qaarna ay xoog sheeganayaan. dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo mas'uuliyaddeeda gudanaysa waxaa waajib ku noqotay inay xal u hesho arrintaas. sidaas ayaa guddiga maamulka iyo maareynta oo ka kooban 7 wasaaradood madaxtooyadan ay hogaaminaysa ayaa la aasaasay. 7 wasaaradood iyo madaxtooyadina awoodda hoose u dejiyeen. hay'adda dhulka ayaa la sameeyay. Ismaaciil Bashiir Warsame, Jubbaland TV, Kismaayo.